ardayda sharafta leh ee maanta halkan ku dhamaysanaysa tababarkan noociisu u gaarka u yahay ama aynu oran karnaba waa dhif marka laga hadlayo tababarada ka baxa gaar ahaan gobolkan Togdheer. halkan maanta munaasabadani waxay daaran tahay 20 dhalinyaro ah oo ka kooban 10 gabdhood iyo 10 wiil oo dhamaystay xirfadda hospitality iyo housekeeping oo macnaheedu noqonayso dhamaystay xirfadda mudallinimada iyo xirfadda hagaajinta iyo habeynta hoteelada. dabcan ama dadka xirfaddan leh oo naadir ku ah gobolka Togdheer iyo guud ahaan Somalilandba waxa sharaf iyo qiimo badan u ah RCC inay ka mid noqoto xarumaha dhifka ah ee runtii bixinaya adeega noocan oo kala ah. haddaan nahay xaruntan RCC ama Research and Consultancy Center shirkadaha kale aan bahwadaagtanahay ee mashruuca naga caawiyay ee la yiraahdo SMEF iyo BDO oo runtii iyaguna ka sii helay dhaqaalahan World Bank ayaan runtii markaa na dhex martay inaanu sameeyno mashruuc kooban oo tijaabo ah oo markaa bal lagu tababarayo 20 qof oo inama iyo habla ka kooban. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa runtii markaa mar labaad sharaf noo ah hay'adda maanta chance kan siisay ardaydan 20 ka kooban ee dhalinyarta ah ee doonaysay ama ba haysay wadadii ay ku shaqaysan lahaayeen ama xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeen chance kaas oo noqday in ay 20 cisho ama 14 cisho gudahood in ay ku siiyaan aqoon kaabis dhameystiran iyo cadayntii shaqada. aad baad salaamaya dhamaantiinba ugu horeyso qolada RCC waxaan leeyahay kaalinaad iyo aad u qiimo badan ama ku cusub gobolka ama aan hore looga fulin ayay ku soo biiriyeen gobolka oo dad bay wax bareen xirfadaan hore looga xoog loo saar jirin bay kor u soo qaadeen oo soo kordhiyeen. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qolada RCC aan ugu soo dhaweynayaa inay hawsha halka ka sii wadaan. Liibaan hotel ahaana maamulkeeda iyo afkii hotelkan ku hadlayana anigoo managerka hotelka xalidlaa way soo dhaweynaya aad iyo aad soo dhaweyn. dhammaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa maamulayaasha hay'adda RCC oo noo fududeysay tababarkan sida fudud inaan ku qaadano waliba aqoonsi u helo goobaha shaqada anagoo rabna inaan shaqeyno balse aanan wali haysanin cadayntii shaqada. alxamdulillah maanta waan heli karnaa meeshan doonana u shaqayn karnaa. dhammaantiin waxaan leeyahay hambaliyo idinka noo fududeeyay inaan si fudud u qaadano tababarkan. xarunta cilmi baarisa RCC waxaan kaloo iyagana aad u salaamayaa ardaydayda qiimaha badan baratay cilmigan hospitality-ga iyo housekeeping-ka. runtii anagu de waxaan ahayn marka horeba shaqaale ku shaqeeya xirfaddan waxa kaliya caqabada kaliya nahaysay waxay haydun inaanu helo aqoonsigii xirfaddan aanu ku shaqeyno inaanu helo iyo training-kii naga dhinnaa ahaadee inaanu magaranaysaay wax badan oo naga qarsoona aanu helo. marka waxa muhiim aad aan ugu mahadcelinaynaa xaruntan research-ka ama RCC taasoo noo suurtagelisay inayna siiso wixii naga dhinnaa. runtii u mahadnaqayaa hay'adda RCC oo barnaamijkan ardaydani qaadatay runtii fulintiisa iyo isku dubaridkiisa iyo dhameystirkiisa waxweeyaan inoo soo runtii fududeeyay oo inoo soo gabagabeeyay. waxaan soo kale waxaan baliyeenayaa oo aan bogaadin u dirayaa runtii ardaydan 20 ah ee muddada 2 toddobaad tababarkan ku jiray adeega iyo daryeelka iyo waxa weeyaan jajabnaanta haddaan af Soomaali saado ku dhadhawee ama hospitality-ga aan housekeeping-ka wax loo yaqaano baranayay oo ah runtii xirfad aan isleeyahay horta ogaalkayga ama aqoonteeda hore wadanka uga ma qabsoomin gaar ahaan gobolkan Togdheer. waxaan idin leeyahay runtii hambaliyo.